shir jaraa'id ma aanan qaban jirin laakiin shirkan jaraa'id sababtiisu inay ahayd ugu horeyn in laga digo go'aamada wixii keenaya cirib xumo dalka iyo dadkaba ku keenaya way qaraar marka la yiraahdo uu ka duwan yahay shay hal mar la fuliyay waxa laga yaabaa qarniyo badan inuu jiri karo waxa adkaan karta mararka qaar kood go'aan la dhigay in dib looga codeeyo ama meesha laga saaro sida daraadeed cirib xumo ku leeyahay dalkiiyo dadkaba iyo cidda go'aanka qaladka gaadhada quraankana ilaahay uu ka digay wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halal wa hada haram litaftaru ala allahi alkadhib ilaahay beena ku abuuranina baa ilaahay qadiyada ribada sida culimadu ay sheegeen daliilo badan oo quraanka iyo xadiidka ka waramaya imika taa u bixi mayno waqtiguna uu nagu dheeraanay waxa kamid ah daliilada nabiga oo sheegay 836 jeer oo qofku sinaysto hal shilin oo riba ah oo cunaa ka daran waxa laga yaabaa qofka hadii la yiraahdo 630 sano 630 jeer buu sinaystay in madaxa la qabsado la yiraahdo muxuu ahaa kan waalana wadanka helay laakiin hal shilin oo riba ah oo la cuno hal dirham ayaa ka daran buu nabiga kaleey salaatu wasalaam miisaanku inoo saaray saadaradeed shirkan jaraa'id wuxuu ahaa nasiixo iyo talo aynu fidinayno laba qolada horeysa waxa weeye ganacsatada iyo qolada labaad oo ah golaha u hor yaalo qolada ganacsatada waxaanu leenahay ama culimada ay soo jeedinayaan iyagoo kulay arrimahan aan ka hadlayaan isla waafaqsanahay xoolihiinu waa xoolaha iyaga waxaynu kala leenahay ma jiro xoolaha aad tabcaysaan annaguna soo gaaraya qaarankii baan idinka qaadaynaa wadankii baa lagu maalgelinayaa hadduu xaaraan noqdo annaga kaayagii xaaraan noqdo ka dhigaya sida daraadeed waa soo dhaweynaynaa inuu ilaahay maal idin kordhiyo waana idinku ducaynaynaa allahna ha idin barakeeyo laakiin waxaanu ka digaynaa maalkii inuu xaaraan noqdo maadaam idinka aanu idinku eegaanaynin duulkiisu cid walba gaadhayo sidoo kale markaan arrintan ka hadlayno Soomaaliland oo qura maaha laakiin walaalaha Soomaalida ah meel kastay joogaan wayna weydiiyaan mas'aladan markaanu jaaleedeena dibadda u tagno waxyaabaha ugu badan ee ka cabanaya waa ribada iyo baanaka ribada dhibaatada ay ku hayaan marka ganacsiga dadka muslimiinta ah iyo ummadda af Soomaaliya ku hadlaysa maadaama isdhaxmarayaan wada shaqaysiga jira meel kastay joogaan in aad looga fiirjignaado baananka ribada wuxuu saameeyaa cibaadada ribada ayay saameynaysaa oo qofka xaraan cunaya in laga aqbalin cibaadadiisu nabigu sheegay waxay saameynaysaa dalka maanta gaaladii baa qaylinaya wax guntigiis la yiraahdo ayaa ay sheegaan guntigiisku waxa uu ku yimi ribadii la isticmaalayay dalkii dumisay dhaqaalihiisa wa taa ilaahay uu sheegay in yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat ilaahay ribadu waxay ku jirtaa uu baabiiyaa meelihii baananka islaamka ku shaqeynayay tijaarada caadiga way sii noolii laakiin iyagii way dumeen iyagaaba qiraya ribada ra'iisul wasaaraha Ingiriisku wuxuu ku faanaya oo lahaa hadda waxaanay dalkii Yurub u horeeyay ee fura ee ogolaada baan islaama iyadoo taana faa'iidadii ay ka dareemeen wanaaga islaamku leeyahay sidaa daraadeed dhaqaaluhu inaga dhaxeeya waxaanu jecelahay wixii wanaagsan inaa wax ku soo kordhisaan xalaal walaalaheena wakiilada ana waxaanu leenahay laabudda min shucuur mas'uuliyah walaga maarmaan mas'uuliyadda ina dareentaan oo mas'uuliyadani ilaahay baa idin kula xisaabtamay ummaduna way eegaysaa marka raadka aad dhigta maanta waxa laga yaabaa adoo xabaalan in lagu cadaabo xumaanta uu leeyahay marka mas'uuliyadda in la dareemo oo mabaadida la ilaaliyo waxa masaalixda la yiraahdo mabaadida ka horeysa dibna talimka la leeyahay waxa ka soo kordhaya riba iyo khamri wixii ka soo kordha mar hadii mabdi xaq ah lagu duminayo laguma xisaabtamayo sida quraanku uu sheegay sidoo kale golaha wakiiladu marka ama doodayo ama qaraaraad qaadanayo ama fikirayo waa inuu ka duwanaada sida ummadaha shisheeye u fikiraan ayagu inagu sibqad iyo dareen gaar ah in leenahay iyo mabaadi gaar oo islaama marka waxaynu mar walba ilaalinaynaa wixii mabaadida duqeynayeen ka fogaanayna waxaan inta raacin lahaa waxyaabaha qaar kood oo la yara xuso ama golaha ha ahaato ama dadka qaar kood ha ahaado oo loo yara daliishado baankan keenidiisa horeysa waxa weeye wadamada qaar kood buu ka furay yahay bay yiraahdaan dadka qaar kood wadamada islaamka qaar kood ayuu ka furay waxaynu daliishanaynaa ma aha wadan iyo shakhs Ali ibn Abi Talib baa wuxuu yiri wayxaq اعرف الحق لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله ورمرك دوريسان حق ina barataan dadka ka eegeegina laakiin xaq sidiisa u barto
markaas aydan cidda raacaysa iyo cidda kale ay kala garan doonto marka wadan hebel buu ka furan yahay wadan hebel sax ma aha waa qalad laakiin daliil marka la leeyahay qofka aqoon-yahanka ah ee sharci ku xisaabtamaya wuxuu dhahdaa maxaa shareecadeena ogosha taasaa lagu xisaabtamaa warka wadan in la daliishado laga yaabo meelaha qaarkood ba inagu aynu kaga saxanahay qalad taasi qalad bay noqonaysaa arinta labaad waxa weeye baanankan islaamka ee wadanka ka furan ayaa walaalaheen marka ay ka hadlayaan ay yiraahdaan dadkii bay ku qaariyeen iibkii ama nidhaahna wixii ay ka iibiyeen wixii ay saarayeen macaashkii ay beeca saarayeen bay ku qaariyeen bay yiraahdaan waa sax weeye waxaynu leenahay oo culimadu runtii ay isla waafaqsay inoo laga wada hadlay baananka islaamiga ah laftigooda wadanka ka furan nasiixooyinkan iyo talooyinkan aan u soo jeedinayna taw horeysa weeyaane faa'iidada ay dadka saarayaan inay yareeyaan kii ribadu wuxuu ku faanayaa boqolkiiba 4 baan saaraya boqolkiiba 5 marka kii islaamka ee baankii islaamiga ahana waa inuu isaguna dhima faa'iidada oo dib ay isugu noqdaan oo waxa kan uu arkay iyagu wax ka weyn bay arkayaan hami baaba xandaarsan mar haday islaam sheegeen inay diinta ilaalinayaan diintuna waxay faraysaa dadka in loo naxariisto way rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam رحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى إلهي هو نحريسته قفك سامحات بدن إدتك ودرعية مركو وحسي يبينيه يا مركو سوء يبسنيه يا مركو أماه لك قاعدنا مركو ترى علماء سوء تشيدين أنا وهو رئيس بانان كإسلام كأسوء تشيدين يا وحوي إني أتشبيان ضدك مركو وحكي يبينيان معاش كساريان ترى الله بعض وحويان ضدك وحلا أماهين يعني مساكين تا ضيرتي كتيرة oo aan la oranin qofka mesela waxa maahanaya waa inuu capital ama dhaqaale intaas leeyahay laakiin ay ku jiraan dadka wax la amaahinaya dadka masaakiinta talada saddexaad waxa weeye al-qard al-hasan inuu jiro oo ay bixiyaan maadaama ummadoodii ay la joogaan dareenkii mar walba uu taagan yahay xagooda la soo eegayo wixii loo yaqaan al-qard al-hasan ama aan tulsaar lahayn mashaariicda khayriga ururada bulshada wuxuu qabanaya ee dadaalaya dhalinyarada iyo dumarku ay ka mid yihiin in la yiraahdo idinka wax tulsaar ama hadaa meesha wuxuu qaadaysaan uu yahay danguud wax tulsaar idinka qaadin mayno talada afraad culimadu soo jeedinaya waxa weeyaan mararka qaarkood waxa dhacda mucaamalaadka baanankaasi sameynayaan islaamiga in waxyaabo yar yar oo khilaaf uu ka yimaado shariicada khilaafsan marka cidda wuxuu fulinaysa ee shaqaalaha inay daba galaan oo mukhalafaadka ka imanayana iyagana ay saxaan waxa shanaado culimadu ay u soo jeedinaysaa maadaama iyaga dhaqan galiyeen xeerkii goluhu hore u baasgareeyay ee ahaa xeerka baananka islaamiga ah inay golaha laftiisa u sharxaan in kan laftiisa caalamka aanu inaga xidhayna caalamka loogu shaqo tagi karo oo imika maraanu eegaynay website-ka 800 oo baan oo islaamiga ka shaqeeya caalam islaami oo adduunyada la shaqeysta marka macnaheedu maaha hadii xeerkan islaamka la qaato adduunyadii baa laga xidhmaya karibadana adduunyada lagu dhaxgalaya maaha laakiin doorka ay qaadanayaan baanankeena islaamku waxa weey golaha wakiilada iyo xukuumadda iyo ganacsatada inay u sharxaan ay ku qanciyaan kan islaamka laftiisa adigoo wada inaad kaga shaqatay kartaa adduunyadii oo lagu macaashi karo wadankana lagu horumarin karo talooyinka aan akhriyay kulay waa kuwa ay culimadu wada qabaan guud ahaan bana xaq sheego xaq sheeg baa leeyahay ku dir lama oranina kelmadii qolana qaraar bay leedahay qolana waxay leedahay qowl ka culimadu qowlkoodii bay soo jeediyeen amaanadii risaaladii diiniga ahayd saarnayd bay gudanayaan xujadiina way iska rideen ilaahay agtiisa